kuwani waa qisooyin walaalayaal la dhihi karo dadka caqligooda way ka yaabsadeen aduguna wala yaabi doontaa fadligan inta uu leeg yahay ilaahay ku khaas yeelay aayatul kursi iyo dadka la saaxiiba waa qisooyin ku saabsan aayatul kursi iyo manfaacada laga helay dardaarankeenu waxa weeye oo naftayda iyo tiinaan siinayo ha ka teginina oo ha moognaanina aayatul kursi waxaana halka idinku soo gudbinaynaa dhowr qiso oo ku saabsan aayatul kursi qisooyinkaasoo na tusaya sida fadligeeda u ballaaran yahay oo u gudawan yahay faa'iidooyinka ku jira aayatul kursi waa kuwa adduuniya aakhira aad helaysid ninkii la oran jiray cabdullaahi ibnu jacfar radiyallahu canhu ayaa wuxuu yidhi waxay asiibo igu dhacay xanuun aad iyo aad u daran oo dhakhaatiirtii ay ka noogeen oo ay kari waayeen daawadiisii habeenada ka mid ah ayaa xanuunkii igu siyaaday kadibna waxaan go'aansaday buu yidhi bal wax ka mida qur-aanka inaan isku akhriyo si ilaahay caafimaadii siiyo aayatul kursi baan akhriyey buu kadib baan isku masaxoo ismarmariyey kadib baan iska seexday buu hurdada dhexdeedaan riyo ku arkay riyadaasu maxay leedahay wuxuu yidhi laba nin baa ii imaaday hortayday istaageen labadoodii baa su'aal isweydiinaya mid baa kii kale wuxuu ku yidhi ninkan halkan hurdaa wuxuu akhriyey aayad ay ku jirto 365 naxariis ilaahay haddana hal naxariis oo 360ka ka mid ah ayuu helay oo asiibtay hurdadan ka soo toosay wiil markiiba kadibna waxaan dareemay in xanuunkii iyo qandhadii ay iga tagtay oo aan caafimaaday Allahu akbar wuxuu leeyahay 365 naxariis ayaa ku jirta aayadda hal naxariis ku helay oo tiradaas ka mid ah ka waran in badan hadduu heli lahaa ma sha Allah waa qiso cajiib ah qiso kale la wariyo nin yiraahdo Abu Bakr ibn Nuux ayaa wuxuu ka wariyay aabihiis in aabihiis uu yiri Nuux ninka la yiraahdo waxaa jiray nin aan saaxiib ahayn oo dukaan leh dukaankiisaas aayatul kursi uu habeen kasta ku akhrin jiray markuu soo xirayo habeenada ka mid ah ayuu hilmaamay kadibna wuxuu soo xasuustay marka guriga uu tagay halkaasuu ka soo akhriyay aayatul kursi dhinaca dukaankiisa uu ka jirana waa uu soo ishaaray gacanta kadibna uu iska seexday waaga markuu bayay oo subaxii la gaaray ayuu dukaanka soo aaday kadib uu furay markaasuu wuxuu arkay alaabtii dukaanka taallay oo inta la soo ururiyey dukaanka dhexdiisa la soo dhoobay iyo nin ku dul fadhiya halkaas ninkiibuu weydiiyey oo dukaankayga maxaa ku soo geliyey miyaad jabsatay dukaanka maxaad halka ka samaynaysaa ninkii baa wuxuu yidhi maya ha qaylin xoolahaadii waxba ma qaadan laakiin markii hore waxaan u imid buu yidhi inaan dukaanka xado oo alaabta urursado markaan dukaanka soo galay alaabtii aan isku soo urursaday oo aan dabcaynaan la tago oo la baxo albaabkii baan garan waayey buu aan ka soo galay oo aan jabiyey albaabkii baan haleeli kari waayey meel uga jiraba waa arki waayey buu dirbi baa meel kasta iga xeebay alaabtiina waa tanaa buu yidhi meesha dhooban alaabtii baan iska dhigay bal keligaa badbaado oo baxa baan isiri ayadana way suurtageli weydii buu yidhi albaabkii meeshuu ahaaba wuxuu noqday dirbi adag oo aan la dhaafi karin marka halkaan iska fariistay buu marka adigu ilaa aad albaabka furtay ninii haddaad doonaysa iska kay cafi anugu waa toobad keenay tuugnimadiina waa iska daayey waa iska cafiyey marka ilaahayna ugu mahad celiyey ninkaas aayatul kursiga ilaahay uga xifdiyey aayatul kursiga uu soo akhriyey in tuugan ilaahay dukaanka alaabtiisa inuu qaato inuu rabbi uga xifdiyey ma sha Allah nin kaloo saalixa ayaa wuxuu leeyahay riyan waxaan ku arkay in qiyaamihii u dhacay dadkana loo soo istaajiyey xisaab marka aniga lay keenay si lay xisaabiyo waa lay xisaabiyey buu xisaab yaroo fudud xagga jannada lay kaxeeyey sidaasaan ku riyooday buu kadibna guryo iyo daaro waaweyn ayaan arkay oo quruxdooda aan la yaabay markaas waxaa laygu yidhi daartaan iyo guryahan albaabadooda tiri waan tiriyey buu yidhi waxaan ka helay buu yidhi in albaabadu ay yihiin 50 albaab inay daartaan leedahay markaas waxaa laygu yidhi daartaan imise qol bay ka kooban tahay bal fiiri waan tiriyey buu yidhi markaas waxaan arkay inay tahay 175 markaas waxaa laygu yidhi run baad sheegtay waa sidaas markay halkaa riyadaydu marayso ayaan farax daraaddiis iyo faraxii iga batay ayaan hurdadii ka kacay oo booday alxamdulilaahi baan idhi waagu markuu ii baryey ayaa waxaan aaday buu yidhi caalimkii la oran jiray oo taabici ah maxamed ibn siriin oo lagu yaqaanay riyooyinka inuu fasiro qisadii iyo riyaday qabsataan u sheegay markaasuu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad badisid aayatul kursi akhrinteeda haa baan ku idhi oo aad baan u badiya akhrinteeda sideed ku garatay arrintaas markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi aayaddan waxay ka kooban tahay 50 kelmadood iyo 175 xaraf markaasaan la yaabay ninkan xifdigiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdu leeyahay ee ku dhisan xasuusta marka waa abaalmarkaadii guryuhu waxay ka kooban yihiin qolalkooda 175 qol waa xarfihii aayaddan albaabaduna waa 50 albaab wey waa kelmadaha aayaddan ka koobnay kadib wuxuu igu yidhi qofka badiya aayatul kursi ilaahay wuxuu u fududeeyaa sakaraatul mawt
sidaa waxaa dhahaya maxamed ibnu siriin oo ninkaas ayuu ku yidhi raxmatullaahi calayh. waxaana og tihiin oo in badanoo adinka ka mid a ay maqleen in nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka akhriya aayatulkursi salaad kastoo waajiba gadaasheed, yacni salaadda waajibka markaad tukatid haddaad akhrisid aayatulkursi jannada waxaa kaa hortaagan oo keliya inaad dhimatid. haddaad dhimatid jannada hore ka gelaysaa. qofka daa'ima aayatulkursi waa qof wanaagsan oo runlow ah oo caabid ah. qofka akhriya habeenkii markuu seexanayo ilaahay naftiisa meel ammaanuu u dhigaa, deriskiisa ammaan baa la siiyaa, deriskiisa ammaan baa la siiyaa, iyo guryaha ku xeeran oo dhan xumaantuu ilaahay ka ilaalinayaa tabaaraka wa tacaala. maa sha allah. sidaa darteed waxaa la yidhahdaa aayatulkursi qofka akhriya oo meel ku akhriya ama guri ku akhriya, gurigaas ama meeshaas shaydaanku waa ka fogaanayaa 3 maalmood. 30 maalmood haddaad akhrisidna shaydaan waa kaa fogaanaya, gurigaada waa ka fogaanaya, meeshaad degantahay waa ka fogaanaya. 40 maalmood kaa soo agdhowaan mayo, waa kaa cararaya. gaashaan baa haysataa, difaac baa haysataa. aayad cajiibo mucjisaa weeye. qisaskan qiimaha badan markaan akhriyo oo arkay naftaydu ay dareentay. adinkana insha allahu tacaala waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago. baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.